kusoo dhawow abna official fadlan channelka haddii aad ku cusub tahay subscribe saar. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. halkaad naga daawanaysato abna official fadlan channelka haddii aad ku cusub tahay subscribe saar si ay kusoo gaaraan muuqaalada xiga. muuqaalkan waxaan kaga sheekeynaynaa waa maxay waxyaabaha muhiimka ay ka dhigayaan shirkad mid guulaysata. guushu inta badan waa natiijada shaqo adag iyo qorsheyn wanaagsan iyo dhowr arrimood oo muhiim ah ayaa gala horumarinta shirkad guulaysata. milkiilayaasha ganacsigu waxay u cabbiraan guusha siyaabo kala duwan, laakiin waxaa jira habab joogto ah oo lagu gaaro guusha, kuwaas oo u baahan inay ka mid noqdaan qorsheynta shirkadda iyo hababka maamulka. inay shirkad guulaysato waxaa ka eegaynaa ilaa iyo dhowr qodobood. waxaa ka mid ah qodobadan. qodobka koowaad wuxuu noqonayaa qorsheynta. waxaa dhihi karnaa waa qodobada ugu muhiimsan ee ah inay shirkad guulaysato oo asaasi u ah. qorshayaasha ganacsiga iyo suuqgeynta waa khariidadaha dariiqyada lagu qorayo ama lagu noqonayo shirkaddu inay guulaysato. kobaca shirkadaada, soo saarka alaabaha cusub, olayaasha suuqgeynta iyo dakhliga waa in si taxadar leh loo qorsheeyaa. qorshaha ganacsigu wuxuu hagayaa jihada guud ee shirkadda, halka qorshaha suuqgeyntu uu horumariyo xayeysiisyada alaabta oo ay ku jiraan ka faa'iidaysiga shaqaalaha, miisaaniyadda ku salaysan daraska iibka iyo xaaladaha qaybinta alaabta. qorsheynta wanaagsan waxay ka dhigtaa shirkaddu inay diiradda saarto howlaha faa'iido-doonka ah. qodobada ugu muhiimsan ee ka dhigaysa shirkad mid guulaysata waa haysashada shaqaalaha, xidhiidhka shaqaalaha, mushaaraadka, horumarinta shaqada iyo jawi shaqo oo badbaado leh ayaa ah walxaha sii haynta shirkaddu ay ku haysan karto shaqaalaheeda. shirkadda guulaysata waxay si adag ku shaqaysaa inay shaqaalaysiiso qof karti wanaagsan leh, kadibna ay sii haysto qofkaas oo ay ku tababarto shaqada ilaa ay ka dhigto mid shaqada ku waara. horumarka shirkadaadu waxay istaagtaa marka aad si joogto ah iskugu daydo inaad beddesho shaqaale khibrad leh. ha isku dayin inaad shaqada ka eriso ama aad ka beddesho qof khibrad leh haddii danta shirkadda ay ka weyn tahay qofkaas. shirkadda guulaysata waxay maalgelisaa tababarka shaqaalaha iyo horumarinta xirfadaha si ay u gacan geysato horumarinta badeecooyinka cusub iyo inay la socdaan horumarka shirkadda ay tiigsanayso. qodobka saddexaad waa maamulka. waxaa lagu tiriyaa qodobada asaasiga u ah inay shirkad guulaysato. kooxdaada maamulka ayaa ah mid horumarisa oo maamusha qorshayaasha, taasoo kaa caawinaya adiga shirkad ahaan inay shirkadaada horay u socoto. maaraynta xooggani waxay noqotaa qayb muhiima oo ka mid ah qaybaha kale ee guusha shirkadda, sida qorsheynta ganacsiga iyo sii haynta shaqaalaha. marka shaqaaluhu ay kalsooni ku qabaan maamulka, waxay ka shaqayn doontaa sidii qorshayaasha shirkaddu u guulaysan lahaayeen. haddii aysan jirin koox maamul oo xooggan, shirkaddu waxay la'dahay tilmaanta iyo agabka lagama maarmaanka u ah guusha. qodobka afraad ee asaasigu ah inay shirkaddii guulaysato waxaa waaye maalgelinta. way adag tahay in shirkadii hore u socoto oo ay guulaysato iyadoo aan la helin maalgelin habboon. maalgelintaasi waxay ka imaan kartaa ilo dibadda ah sida maalgashadayaasha ama deeq-bixiyeyaasha, ama waxay ka imaan kartaa dakhliga ay shirkaddu soo saarto. awoodda lagu helo maalgelin ku habboon baahiyaha shirkadda ayaa muhiim u ah ilaalinta howlmaalmeedka iyo maalgelinta mashaariicda gacanka geysta kordhinta saamiga suuqa. halkan waxaa inagu dhammaaday muuqaalkeeni aan ugu sheekeynayno waxyaabaha asaasiga u ah inay shirkadda guulaysato. afartaas qodob ayaan ugu muhiimsan: qorsheynta, shaqaalaha, maamulka iyo maalgelinta. mar walba waxaad ku dadaashaa inaad adigu tahay qof dhan waliba ka dhisan. fadlan channelka haddii aad ku cusub tahay subscribe saar si ay kuu soo gaaraan muuqaalada xiga. mahadsanid.